بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali maxamed meel walba ay joogaan. waxa ka inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. waxa gabayga maanta la yiraahdaa iska aamus, wuxuuna ka hadlayaa in xaaladahan kolkaad ku sugan tahay aad iska aamustid. wuxuuna ku bilaabmayaa insha Allah sidan: iska aamus kolkaad xanaaqdo ama meel lagaaga dhacee lagu ixtiraami waayo. iska aamus kolka ereyadaada la dhagaysan waaye qof ahaan lagu yeso. iska aamus kolka qof in iyo dhib haysataa kula imaadee rabo inaad ka dhagaysateed anfacdo. iska aamus kolka lagu dhaleecadeeye idil insaanku ku yaraysto. iska aamus oo hays sharixin amuurahaaga gaarka ummadda hala wadaagin. iska aamus ficilkaagay dadku arki doonaanay eegi doonaan natiijadaade. iska aamus kolka lagula dagaalo afkaagana xidho. iska aamus aminta dadku dhabarkaaga adi ku xantaan. isku tababar in aadan wax yeelin qof aad u adeegto ummadda kaa soo horjeediyey. samirka iyo dulqaadka ogow waa darajo iftiimayse. naftaada ha u dhibin hadalka aadamaha kugu soo abaaraan. u dhimri naftaada, dareemahaaga yaan lagula isticmaalin. ha noqon qof shucuurtiisa eedaymaha aadamuhu ereyadoodu saameeyaan. cidna ha istusin, cidna ha iska dhaadhicin. ashkhaas u nool alle awgii goor iyo ayaan ahaw. adduunyada qofka u adagee awoodda le waa ka naftiisa xajiya kolka uu xanaaqo ee umalka iyo cadhadiisa qarsada. iska aamus kolkaad xanaaqdo ama meel lagaaga dhacee lagu ixtiraami waayo. iska aamus kolka ereyadaada la dhagaysan waaye qof ahaan lagu yeso. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay ruuxii cadhadiisa qarsadaa allah qiyaamaha raalli ahaansho qalbigiisa ka buuxsha. aan ku dadaalo insha Allah walaalayaal. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.